وكما فنانكي ugu horeeyay ee sameeya hees Soomaaliya aabihii fanka Soomaaliyeed Cabdi Warfaad Deeqsi oo ku magac dheeraa Cabdi Sinimo qiyaastii 1920kii ayuu ku dhashay jaara horate ee gobolka Oodal waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee sameeya qaabka hees Soomaaliga maanta u dhaco isagoo abuuray laxanka iyo habdhaca asaaska u ahaa qaaciga iyo qaaraamiga caanka ah wuxuu heesaha iyo fanka bilaabay qiyaastii 1940meeyadii goortaas oo uu sameeyay kooxda iyo fanka balwo wuxuu ahaa darawal iyo milkiile gaari dadka u kala qaada magaalooyinka Boorama iyo Djibouti waqtigaas ayuu sameeyay ereyada heesii ugu horeeyay oo ku luqeeyo isagoo ka shaqeynayay gaarigii ka xumaaday